barta muuqaalada gaagaaban ee bulshada adeegsatay ee TikTok-ga waxaa qabsaday nin Isbaanish ah oo uu sheegay inuu keligii nool yahay. Koontada uu ku isticmaalo barta TikTok-ga oo loogu magac daray Unico Superviviente oo la micno ah qofka kaliya ay badbaaday, ayaa dhawaanahan qabsaday baraha bulshada ay ku wada xiriirto. Isticmaalahan TikTok-ga ee Isbaanishka ah wuxuu soo jiitay malaayiin daawadayaal ah iyo taabacanayaal ku xiran diiwaankiisa. waxa uu badanaa soo duubaa ama uu soo gudbiyaa goobaha ugu caansan ee Spain, halka oo laga arki karo inay gebi ahaanba faaruq yihiin. waxa uu tilmaamay in kolkii hore uu ka soo toosay xaalad miyir beel ah oo ku sugnaa, wuxuuna soo baraarugay isaga keligii oo isbitaal dhex jiifa. wuxuuna sheegayaa ninkani kolka uu arko dunida ku hareeraysan in gebi ahaanba ay maran tahay oo uusan arag dad iyo dunyo ku nool adduunka uu joogo. Isticmaalahan la magac baxay Unico Superviviente ee Isbaanishka ah wuxuu sheegay inuu muddo bilooyin ah uusan helin ama arag qof bini'aadam ah oo dhex socda wadooyinka, isla markaana wax waliba oo hareerihiisa yaala ay tilmaamayaan ama ay ishaarayaan in waqtiga la joogo uu yahay 2027. Inkastoo ay daawadayaasha la cajabeen, qariibna ay ku noqotay waxa uu ninkani sameynayo, ayay ka codsadeen inuu booqdo meelo kale oo ay tilmaameen si uu muuqaalo ugu soo duubo baraha loo ishaaray, lana hubiyo in muuqaalkiisu yahay kuwa cusub aan la qaadin intii lagu guda jiray 2020 oo xanuunka faafa ee koronaha aad u saameeyay Spain. dad badan ayaa walwal iyo baqdin muujiyay markii uu galay isbitaal uu fiidiyoo ka soo duubayay, mana uusan ka helin isbitaalkaasi dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad. kolkii loo eego meelahaasi oo kale, waxa hubaala inaysan weligoodba cidlo noqon xitaa inta lagu guda jiray xirnaashiyihii buuxay ee COVID-19. waxa uu daawadayaasha tusaa cadeymaha ah in la joogo 2027. intaa waxaa sii dheer inuu booqdo beerta xayawaanka, wuxuuna muujiyay in gebi ahaanba wax xayawaan ah halkaasi ay joogin. inkastoo mararka qaarkood muuqaaladiisa laga dheehan karo shimbiraha qaarkood iyo cayayaanada yaryar. wuxuu muuqaalo ka soo duubay garoomada diyaaradaha, goobaha laga tukaamaysto iyo xitaa naadiyada isboortiga, mana uusan arag qof bini'aadam ah oo uu meelaha booqday ku sugan ama jooga, taasoo ay ka yaabisay daawadayaashiisa, isla markaana ay su'aalo badan oo ku saabsan runsheegiisa weydiiyaan. haddaba haddii aan ku weydiiyo adigan muuqaalka daawanaya, ma isleedahay ninkani waa shakhsi ku nool adduun kale, maxaadna ku tilmaami lahayd dhacdadan?